waayahay bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiyya bacdah. waxaan ku guda jirnaa dhisideenii website-keen hotelka ahaa oo projectiga dhammaystiran dabcan waa kana. marka cashirkiisa dhaaf waxaan soo qaaday navbarkan aan soo naqshadeyna anagoo qaabka camal u dhignay. marka insha allah waxaan naqshadeynayna dacwada sameynayna intaan oo showcase-kan oo ah maxay ahaydeen sawirkan iyo qoraalkan enjoy stay iyo badhankan intaasa sameynayna insha allah cashirkan. navbarka waa wuu diyaarsan yahay. marka waxaan tagaa editorkeygaan tagaa. marka editorkeyga markaa tago meeshaan ay ku furan tahay maxay ahaydeen meeshaan oo mapka gadaashiisa waxaan ka furanaa meeshaan mapka gadaashiisa waxaan ka furanaa dibkan ID-giisa waxaa la dhahaa showcase. dibka ID-giisa showcase waaye. sidoo kale waxaan furanaa dib kale aan furanaa dibkan isagana class-kiisa waxaa waaye showcase content. so marka content waxaa ula jeeda macnaha waxaan rabaa content-dan qaybtan dhex inaan soo geliyo. showcase koowaad waxaan rabaa inaan sawirkan soo geliyo qaabkaasaan rabaa insha allah. showcase content markaa dhahdid waxaa dhahdaa head one waxaa dhahdaa enjoy your stay. waa kana enjoy istaas agtiisa ujeeda. enjoy waxa waaye maxay ahayd kalarkeeda waa qaab goldan camal waa soo maaha. maan ka dhigana insha allah waxaan sameynaynaa intaan enjoy waxaa dhexgelinaynaa sbaan dhexgelinaynaa. intaan enjoy sbaan dhexgelinaynaa. so marka sbaan marka ay dhexgelisid meeshaan waxay dhahdaa marka class waxaa isiisaa text greeting primary. so marka aasasta kadib inta waxaa isiisaa paragraphkan dabcan classkan hadda waxaan ku keensanaa lorin xisama ku keensanaa. marka intaan dhan maray dabcan waxaan soo qaadanaa keliya intaa inay ugu fulan tahay. intaana soo qaadanaa kad aan leeyahay. intaan kale waa iska tirtiraan u baahni dabcan. so intaana bastireena qoraalkan markaasas u bastigareeyay kadib waxaan keenaa meeshaan waxaan keenaa badhankan wuxuu aadaa about.html. inta marka waxaan dhahaa waxaan ugu qoran about our hotel option soo maahan. waxaan ku qoraa about our hotel. so kan linkigan classkiisa waxaan dhahaa btn aan dhahaa. marka dadaan ku laabto website-kii haddaan refresh aan dhaho so ujeedii waa kana wuu iisoo galay. marka waxaan sameynaa mine styling-ka meeshaan aan joogo waxaan dhahaa h1 iyo h2 iyo h3 waa global styling-ka ka wada. waxaa leeyahay margin minus bottom margin minus bottom 1%. set hadda aan ku laabto refresh aan dhaho inuu hoosas uu soo kala ahaan tahay. marka sidoo kale waxaan leeyahay paragraphkan waxaan leeyahay margin waxaa leeyahay 10 pixel top iyo left iyo kan kale right. so paragraphkan intaasaan leeyahay. marka waxaa ii dhimi marka inaa showcase sawirkan arkaysa. sawirkaas ujeedinaa inta kusoo darsado. marka dabcan sawiradan hadda way i diyaarsan yihiin. waa kana folderkan keensaday intaan sawir kusoo sitay.
sawiradan dabcan waxaad ka helaysaa saa hor idin soo sheegay waxaad ka helaysaa website-kan oo pixabay dhahaan waxaa leedahay pixabay.com. marka sawirada anaga hadda hotel waxaynan soo mahan kaliya message hotel quraysa markaas wuxuu ku keenaa sawiro badan oo hotel macnaha hotel aan leedahay. marka kadib aad soo degsanaysaa. ana hadda waan soo degsaday oo waan diyaarsaday saacadii waxaan ku tusaa meesha aad ka helaysid qaabka loo soo degsanaa xitaa cashiradooda aan kusoo aragnay dabcan haddana waan tusaa. waa kana hadda ana waa kana midkan oo wax laaran oo backgroundkiisa waa kana macnaha yoomahan soo waayo sariirta barkimanka iyo akana marka qaabka usoo degsanaysa waxay tahay waa ku dhufanaysaa. marka ku dhufatid wuxuu ku geynaa sawirkan meel oo maxay ahayd cabiradiis laga saxay ama hadii free download lahaa oo download soo dejinay meeshaas ku geynaa. dabcan kadib waxaad ku dhufanaysaa download kadib ku soo degaan macnaha. marka waxaan u laabanaynaa maxay ahayd waxaan u laabanaynaa starship ka u laabanaynaa. waxaan leenahay meeshaan waxaan leenahay kadibna inta waxaan leeyahay showcase waan u fahma macna showcase markaa kadib meeshaan waxaan leeyahay showcase waa soo maahan waxaan leeyahay showcase background URL sawirka oo background kale inoo soo dhigto macna. dabcan sawirkan iyagiis waxaa la dhahaa showcase folderka oo ku dhex jiro maxaa folderka oo ku dhex jiro waa img. marka waxaa leeyahay dod laba maraca gadaal u baxa macna dadka maxaa yeelay folderka wuxuu ku dhex jira sawirka img soo marka failka aan waxa u basgareynayno css ku sii dhex jira macnaha. marka dod waxaan ka wadaa macnaha css marka laga baxo folderka meesha ku yaala laba dhibic ss leh macnaha /img sawirkiisa showcase.jpg. so marka inta waxaa leeyahay no repeat le waxba isoo celinin waa no repeat leeyahay no repeat information inoo soo noqdo macnaha. sidoo kale waxaa leeyahay centra ahaado sidoo kale waxaa dhinaca kale centra aslan centra imaado slash size-kiisa ha noqdo cover macnaha hadaba meeshaan view-gan tagaa wardrobe si loo soo jaro cover-ka ha noqdaan le macnaha. sidoo kale waxaa leeyahay high-giisa ha noqdo 600 pixel. marka dadaan save dhaho oon ku laabto aan refresh aan dhaho waxaa arkaysaa in uu sawirka noo soo galaayo. waa kana soo mahan sawirka waa inoo soo galay. waa kana sawirka waa inoo soo galay waayahay. waa kana sawirka waa inoo soo galay hase ahaatee contentiga waxay ahaydeen banaanka ugu baxsan. sidoo kale kan ku jiro waxaan sameeynaa bidkan oo showcase-ka bidkan oo showcase intuu ku xiran yahay soo maahan. so marka maadaama intuu ku xiran yahay aniga aan sawirka soo geliyay marka intaan contentiska banaanka iskaaga tuuro macnaha waad u jeedin banaanka iskaaga tuuro sida anaga ahna oo aan raacoonana gudaha ku dhex jiro. marka waxaan sameeynaa bidka waxaan ka xiraa inta ku xiran waan ka soo qaadaa waxaan ka xiraa meesha u dambayso oo kan showcase content waa intaan ka xiraa meeshaan aan ka xiraa bidkaas. marka comment oo baxsanaasa oo u iloobin comment waxaa leeyahay md of showcase. kan waxaa leeyahay md of showcase. kan waxaa leeyahay md of showcase. so marka dadaan save dhaho u laabto aan refresh aan dhaho waxaa arkaysaa in oo noo soo galay gudahan in noo soo galay. hase ahaatee colorka dabcan cadaan waxaan sameynaa horta saan u aragno hadda text primary aan ku jirnaa soo mahan. waxaan leeyahay h1 enjoy your stay enjoy wuxuu ku jirtaa text primary ku jirtaa. marka css kan tagaa youtube class ka ilan text primary ga mar walba isticmaal rabaa text
primary aan leeyahay primary colorka ha ahaado hash f7c iyo ida kana isa colorka ahaado dan safada aan dhaho waxa arkaysaa inuu colorka no saas u enjoy ama noqday marka cadaan ina ka dhigaa rabaa waxaan leeyahay waa kana hash showcase content page 1 waxaan leeyahay page 1 kaas markaa dhaqid waxaan leeyahay colorka cadaan so markaas cadaan oo noqday paragraph kan sidoo kale asagana cadaan ka dhigaa waxaan leeyahay showcase content أنا سام باك وحن شيء ويا إلمنتياش خاطر إسكوس يلا نشيء ويا مقدم على إن شاء الله كوري من باراجراف أستيقنا كلر كحالي هاي عدانها سيفن لي عدان كلاب دو أم فريش عندهم سي عدان فما كنت كعربة إنجوي إستيجان يوم محي دحدا إمام معنا ماشي وهبدا وكن إنجليز كان دحدا إمام waxaan sameynaa waxaan ku xalinaa container dhaxgelina aan hore u soo sameeyay filter galaaskeyga outsourcing meesha marka showcase content-ida meeshaan waxa leeyahay dibtanka abu aan ka furnaa dabcan dibkaasna showcase content galaasheeda ka xirnaa inta comment si saa hadhow iyo reerin ada end of container marka meesha marka dibtan waxaan siinaa دكتور حسينا وهي هي indentation طبعا انصحه دكتور حسينا كلاس وكونتين كده داون سيف دو ان اولابتو ان فريش ادو عاركسا انه ساوند سوس ساعات ولي دحد من جو marka text align center ku hagaajina oo style system taga waxaan leeyahay hay'ad kan showcase waaye showcase inta waxaan leeyahay hash showcase content text align center hadda u laabto aan fresh aan dhaho kana dhaxdo ka qaabkan oo kale saan dhaxdo joogan oo dhaxdo tagay marka wili wax baan ka bedelaa badi minus 4 baa leeyahay showcase content soomaha soo kale waxaan leeyahay marka badi minus 4 inuu kor ka soo sakado 200 saddexdan u saddexda u ku laabto dhexda umaaday sidoo amal jahdaan umaaday soo kala fartaada weynta Soomahan headwankan waxa leeyahay font size waxa leeyahay 60 pixel ha ah daasay fadada on ku laabto aan fresh aan waxa arkaysaa in meena macna soo kale leen haygana waxa leeyahay 1.2 okay enjoy stay waa kana waan saxay asaate paragraph ka san xogaa muujina oo waa kana waxa leeyahay font size ka asigana 2 pixel leeyahay sifrad aan ku laabto aan fresh aan dhaho kana intaan ingi inaanu fulan tahay waxa uu moodaa in xogaa weynaaday malan marka haddana soo kale badhankaana aan sameynaa oo badhanka waxa ay gashan class oo GT Soomahan عليه hash showcase content dot btn
background colorka waxaan siinaa kan madow iyo soomahan waxaa background colorka madow fartan cadaan aan siinaa macnaha background colorka waxaan ka dhigaa hash 3 color fartan asigana cadaan color farta cadaan sidoo kale waxaan siinaa baadin oo ah inka 7 pixel isna hadda daan set aan ku laabto where is it aan ku laabto system daan ku laabto hadda aan refresh aan dhaho waa kana qaabkan soo galbalse scrollkan uu yeesho macna sababta scrollkan uu yeeshana waxay tahay maadaama oo paragraphkan uu yahay block level uu yahay eedan ay tahay macnaha inline level ay tahay marka way isdiiday marka waxaan sameynaynaa eedana waxaan ka dhigaynaa inline iyo block isku darsan macnaha oo eedan waxaan ahaa glass of btn marka waxaa leenahay btn meeshaan waxaa leenahay display inline block aan leenahay display inline block dan set aan ku laabto aan refresh aan dhaho waxaa arkaysaa inuu ka baxay xoogaa oo inline block ase ahaatee waxaa moodaa in xoogaa space inta ku jirto maahan space-kaas aan ka saxa insha allah paragraph-ka marka la joogo paragraph-ka waxaa leeyahay margin minus bottom waxaa leeyahay 10 pixel ama waxaa leeyahay 12 pixel inuu ka fiskado sidoo kale farta uu paragraph-kan waa yareynaa intii 20 ama 18 pixel ama 20 hadda daan set dhaho waayahay waxaan sameynaa marka kan hadda markii la dul geeyo background hoverka qaabkan soo maahan marka qaabkan hoverka aan ka dhigaa waxaan sameynaa waxaa leeyahay hash showcase content showcase content btn laba dhibic hover btn hover kadib waxaa leeyahay background colorka btn hover background colorka waxaan siinaa background colorka waxaan ka dhigaa marka hoverka geeyo hash f7c0a qaabkaas ka dhigaa colorkiisana waxaan ka dhigaa madow aan ka dhigaa macnaha sidoo kale yaa jamaaca btn-kan waxaa rabaa in aan utility glass aan ka dhigto oo maxay ahaydee aan baforma hadda kadib soo socdaa inaan waa marka kan baaska ma u baahan waa haddaa baaskan dhaho kan loo fahma marka waxaan sameynaa btn-kan waa qaadaa waxaan dhexgeenaa utility glasska dhexgeenaa waa in badan inaan isticmaalaa rabaa marka wixii aan in badan isticmaalay utility glasskana ku qoro meeshaan hageena bas hadda wax saameyn ugu yeelanayo waaye hoverka waxaan dhahay background colorka ha noqdo okay kan baaskan ka saaraa btn hoverka ha noqdo aan leeyahay maxay ahayd background colorka ha noqdo marka haddaan ku laabto aan refresh aan dhaho okay soo jeedin inuu hoverka oo qaabkan noqonayo marka sidan intaan waa qaadaa utility glasska dhexgelinaa si hadhow meel walba oo waaya waxaa moodaa xoogaa inay isku dhow yihiin marka waxaan sameynaa btn-ka waa kana waxaan leeyahay margin minus top 10 pixel saddex margin minus top btn yaasha kale wacayo oo margin sameynaa isleeda iska dhaafaa dabcan هذا واحد يبدل مواقع تسييس استهداف معنا about أو هكذا okay
okay waxaan sameynaa maadaama isku dhow yihiin paragraphka waxaa leeyahay baadina siina macnaha aweerasi kana meesha hadda mardi minus bottom ay ka tahay hadaa loo diiday dabcan waxaan ku bedelaa baadina le macna baadi minus bottom aan leeyahay baadi minus bottom waxaan leeyahay 20 pixel sidoo kale waxaan leeyahay len high-gan waxaan leeyahay 1.2 marka daan ku laabto mouse-kayga daan ku laabto aan refresh aan dhaho wax kana macna xoogaa waan saas so baadinkan 10 pixel xoogaa inuu ka yaryahay umaleystaa badhanka marka 85 iska dheh okay 85 oo kale leeyahay kasana about our hotel keena so marka showcase-keena waa kana waa naqshadaysanay enjoy-gan waa kana enjoy your stay kana enjoy your stay so marka waa kana waa enjoy your stay marka asa aad marka refresh aan dhahay intuu redirect soo dhajinay macna background cadaan oo ka dhigaa marka aan sameeyana meesha aan ka soo geliyay showcase image kan waxaan horumarinaa background iyo animation dhaha waxaan ka horumarinaa midabka oo daaga oo isticmaal si markuu refresh uu dhahayo oo u qaato midab madow u qaato macna uusan cadaan oo meesha laga dhigo halkaas samahan so especially midab madow ka soo halo maleena ina sababta marka qaybteeni kale oo ah showcase-ka iyo content kale naqshadeenayo waa kana haduu mid meeshan farta inay cayilan tahay umleysid kana waxa waaye farta noocyadeeda waaye ana hadda waxaan isticmaalay oo kaliya farta waxaan isticmaalay lefty sans serif bardana iyo waxaas isticmaalay home marka waxa laga yaabaa fartan inay sigu iyo waxsaas noocaas marka dhimana far dhiman almuhim showcase waa kana waa naqshadeenay marka waxa inoo dhiman qaybta kale oo sida home page ko waxa inoo dhiman oo ah in aan naqshadeeno qaybtan dhexe oo showcase info sawirkan inta yaalo iyo content scan iyo sidoo kale icon scan iyo footer taas page ka home ka nooga dhiman video kale oo gudbina insha Allah marka hadda intaana mareynaa showcase kan caadiga mareynaa marka ashirkeena hadda intaas ku yahay billahi